waxaan la yaabay oo aad iyo aad fajac ula noqday in habeen iyo maalin gabar masaakiina oo ilmo agoona karsanaydo social mediaha ay gabdhaha biskooda haystaan. Gabdhow aqliga miyaa la adihiin maxaanay daba dhigay gabadhan Soomaaliyeed oo walaashiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا مركلة يا مقال عصب. هل كان نقل السعودان ودكتك جنال. بليز خطور سومالي دا على كان قد حيا وحان ليا يسودو هذا ومسؤولها متيهين ميل بعد وجوتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قف والبن وحان ليا هاي وحتى سومالي تهاي فضلا يوتيوب كان وعصوبي هاي حطوا سكراب إيسار قبل الكفرو laakiin dhag ugu sii in si shaqaray waa codsi walaalnimo iyo Soomaalnimo iyo calankaas buluuga dadkiisa. Okay, ha isku soo laabano waxaan bariyahan oo dhan aan daawanay TikTok live ha noqdo ama ha noqdo video soo jaray ama ha noqdo yani 2021 ilaa 2022 gabadha kaliya ee shaashada saaran one only person Somalis kaway maxaa gabadha laga rabaa bal muuqaalka ila daawo waay sabab maxaa hadda laakiin ma kalamo bajeclibo kalamo bajecel iyo qabooba iguma aysan because it's your opinion aday kugu hodan ba isqanso maaha aday ku taala because waxa dhici karta commentiga markaad ii qortay kadib inaad adigu baxdo timo inta qaybsatay aad aroos ka soo niikriziyaa laakiin ku arkay ilaahay baa ku arkaya ma bajeclibo ma iba hor joogtid waay داي هرجو كده وكون جوالي كمان سو حيابها عليا بوبي كميت والله حيابها عليا walaalayaalow gabadhan ma quruxdeeda ayaa cadow ku noqotay. gabadhan masaakiin waay waa gabar yar oo iska shaqaysata ilmo yar haysata agoonyihii ilmaheeda ku nool qurbo ma waxaa rabtay in stresska adduunka ku furtaa jishada waqti iska soo tuurtaa ku dambeeya hee mise gabadh waa maqli jiray hebel waxaa saacado ku ah hadda gabadhan ma quruxdeeda cadow ku ah ma gabadhan hadda waxa uga baqaysiin nimankiina kaas u fahmaanay bis waxaan u soo tolaa anaa baxaa halqaana tagaa waxaan u soo tolaa maray oo 3 yaardi ah baakada geesa gelina dala ama mara u sameeyna labada bis aan furana haydi sasbartino ma riima gala nigiliyo way gabadha masaakiin way intaas oo qofood oo waliba qaarkood ka waaweyn yihiin qaar leeg yihiin way daba dhigateen hebelay daba joogtaa ninaa daba joogtaa war ninka xaaskiisii ka tagay ayada bari buu ka tagaa ayada aqliga ma la'aan nin jan arro ka soo tagay kuweeda qorax hoos ma seexinayo nin kuwiis ka soo tagay ma seexinayo kuweeda ayada hoos that's think aqli sameeya gabdhow waxa aad ku fakaraysiin anigu ma aqaano laakiin waxaan ogahay inaa gabadhaas aad ku haysatiin karta raacad كشوضة وايو وقف شقيسنايا وقف horumar rabo inuu gaaro وقف u digsanaya wallahi maalin muuqaal soo geliday waxay dhacday waxa raba inaan qaataleysin waxa raba inaan dukaan furto waxa raba inaan sameeyo waxa raba sameeyo yaani nolosheeda ay qorsheysanaysaa macnaha qof nolosheeda iyo ubadkeeda inay qorsato ma taqaana qorsheysatay diyaarsatay nidaamsatay waay adiga noloshaada nidaamso hadaa nin haysata adkeyso baaswarkiisa adkeyso yaa laga dhicin way aad gabadhan u daba joogtaan way aad horumarkeeda ugu xuntihiin way aad wax ugu qoorlaadihiin bisi quruxdan ani dhigos ya quruxda markii la adiin nimankiina inta baakad geedin nimankii farda yihiin fardaha waxa loo xiraa
baakad suusa faras kale u fiirin faras kale suusa u fiirin nimankiina inta baakad ka geliya inta baakad ka geliya saan u soo dhah mataqaas yacni ninkaas meel kale kaama fiirinayo waayo ayada waxay rabtaa inay shaqaysato waxay rabtaa inay ilmo korsato waxay rabtaa inay mustaqbal qurux badan samaysato guur ilaahay waa u baneeyey way guursan kartaa ayadaa taqaa maantay guursanayso waqtigay guursanayso calafka ilaahay baa haaya ma wax heli doona mid xaas la ah ma wax heli doonaa mid aan xaas lahayn ayadoo horta ma la weydiiyo su-aasha ani aan rabo hodan in la weydiiyo waxa waaye abbaaya nin naa qaba ma rabtaa in dhaho ani xataa ma umalinaya inay rabto marka adinka cabsidii niigu jirto cabsidii niigu jirto oo weerarka ugu wadaan maxay tahay gabadhan ani haddii gabadhan niman caay lahaayeen oo mataqaan niman ay soo weerari lahaayeen waxaan dhihaa nimankaas way diiday shukaansigoodii nacday dhaqan xumadoodii nacday yacni waxbaan u salay lahay nimankaas waxbaa ku salay lahay waxaan dhihi lahaa xataa waxaa laga yaabaa inta xanaaqo oo dhiiggii kaco inaan nimankaas dagaal la galo waayo waa gabar walaasheena Soomaaliyeed waa gabar ilmo yar haysata oo qurbo joogta adinka hadduu qurbaha stress niigu hayo balaan samaysta abbaayna caawide si walaalnimaha nii caawido wallaahi sheekooyin iyo qisooyin iyo waxbay soo aruurisaa qof wax baratay waaye waxaas arkeedid oo hanti ay samaysanayso afkeeda ku keensatay afka adna ilaahay wuu ku siiyay ayadana wuu ku siiyay adiga afkaaga ilaahay wuxuu u furmay dadka ila ku caayid kaliya warniga camal yeelo oo wax qabso oo waxa samaysatiin wax xigmad adinka aad leedihiin dad iska dhaaf gabadhan barbareemka gabadhan gabar yar waay ilmay korsanay masaakiin ah aqoon ah aabahood dhintay aabahoodna ilaa ku kala goodeen baan hadda dhahayba khaladku ugu weyn hodan gashay maanta ninkeeda ay keentay TikTok aheed kadib wallaata malakumeedka ilaahay baa mataqaana waqtigiisa go'aamiyo qof walba waqti maanta soo ajiisu dhimana teedina maanta dhimana ninka maanta dhimanaysiin laakiin anigu waxa aaminsanahay sababta ugu horeeyay ninkaas inay tahay isha Soomaalida inay gabdhaha waliba qaasatan gabdhihii ka daba orjiray hodanay ninkaagana tos dam inay siiyeenba yahu wulina waxa aaminsanahay walaashay hodan hal talan siinaa please hodanay waxa tahay gabar muuqaalkiigan hodan hal gaarsiiyo waayo codsi ha loo sheegay muuqaalkiigan hodan online walaal isquraan saar walaal adiga iyo caruurtaadaba isquraan saara walaal social media ku laabo TikTok gambalayna iyo naagahan stress iyo wareer iyo caay iyo aflagaado iyo meel aad jirni ku keenayaan iska dhaaf sheekooyinkaagii qisooyinkaagii wanaagaagii soo celi dadkaana kale iskaga bahar warkooda dhig bajalaqa u seenin baan interest waxa siiday magaca oo yeeshay qiimo marka aan la dooday magac iyo qiimo u sameysay marka sidaas darteed waxaan ku leeyahay walaal iska dhaaf hala doodin hana la sheekaysanin badoodaba iska soo gabagabay iska xir halkaas ku soo gabagabay maanta wixii ka dambeeya waa igu codsi live damba hala soo fuulin iska dhaaf muuqaalkaygan sii shaqareeya war YouTube kan uu cusub yahay war hodan laftirkeeda halii gaarsiiniyo sharad hay sameysay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan jeclaa dhamaantiina gabadha masaakiintaana iska daaya